السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومر kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka aynu kaga warrami jirnay arrimaha mar walba u baahan in laga hadlo ee caafimaad ku saabsan waxaynu ka hadli doonaa maanta horta soo dhowaada qofkii maalin jooga iyo kii habeen jooga iyo kii galab joogaba barnaamijkani waa barnaamij runtii markay dhakhaatiirtu iswaraystaan ay ogaadeen inuu yahay number aada u sarreeya waddankeennii ka jira hooyo una warramay nin walbaaba ninka kale waa xaalad deg deg ah oo life threatening condition ah waa xaalad qofka gaadhsiin karta inuu qurbaxo ama dhinto haddii uu helo cid fiican ama gacan fiican oo badbaadisana ilaahay ayaa badbaadiye ah ee waxa suuragala inuu badbaado xaaladdan waxaa loo yaqaanaa anaphylaxis ama waxa weeyaan nooc xaalad deg deg ah oo jirhku uu weerarayo wax soo galay kaasi oo khatar gelinaysa si uu jirhka u difaaco ayaa waxay khatar gelinaysaa isla qofkii difaaca jirhkiisu u khalkhalay xaaladahani waxay dhashaan marka qofka uu qaniino ama ay qaniinto shinnidu kadibna mar labaad ay qaniinto iyada iyo wixii la bah wadaag la-ah xayawaanada yaryar ee iyada u eg ama ka yar waaweyn ama ka yaryarba ama bahalkan muxuu ahaa laxlaha la yidhaahdo ama waspiga la yidhaah aynu u naqaano xuunka ama laxlaha loo yaqaana meela qaarna laxla looga yaqaanaa waxaa jira marka qofku uu kuwaasi qaniinaan xaalad deg deg ah oo ku timaada xaaladdaasi oo ah inuu bararo jirka dhammaantii guda iyo dibadba marka uu gudaha ka bararo ay debnuhu bararaan cunuhu bararo qaybta hawadu ay marayso ay bararto qofkii waxaa ku dhacaya in uu naqasku ku dhego oo cunihii uu kasoo baxay naqasku yaraado oo uu xidhmo taasaa waxay keenaysaa in qofkii uu u dhinto oxygen la-aan waxaa kale oo soo raacda garaaci wadnaha oo isbedelaya marka haddii qofku noocaas markaa waa noocyo ka mid a nooc kale ayaa jira oo masalan drugiska laga qaado dawooyinka oo kale sida antibiotica oo kale marka haddii dhakhtar u tagto oo ku weydiiye allergy mayaad leedahay haddaan hore xataa iskugu ogeyn waxa habboon inaad ku tiraahdo ma ogi ha ku odhanin melihi waayo waxaa suuragal ah inaad tii hore jirhkaaga sensitide garaysay tan dambe kugu mudayaana ay keento anaphylactic shock okay isku wada geeyo marka dhakhtarka lagu geeyo markaad xaaladda dareento haddaad isku ogeyd waxaa mudan inaad si deg deg ah u raadsato meel waxa weeyaan caafimaad haddii aad kalena oo aad ama qurbaha joogto ama meelo kale oo aad haysato dawadii lagaga hortegayey ama ilmahaaguba a haysto waayo xaaladdan xataa waxay khatar aada ku tahay ilmaha yar ee naqan aan garanaynin xaaladdan waxa uu ka qaado iyo wuxuuna ka qaadin ee mar walba ciyaalka yar la cunaya lana boobaya cuntooyinka kale ee ay faamiliyadu soo siiyeen marka ciyaalka dhibta inta badan ku dhacda waxa weeyaan waxyaalaha lowska iyo wixii la mid ah allergiga hadday ka qaadaan iyagana sidan oo kale ayaa ku dhacda naqaska ayaa muddo yar qabta dabadeedna waxaa iyaga marka hadda horta iyaga waxaa u muhiima inay iskuulka iyo macalimiinta iyo maamulka iyo meeshay joogaan xaaladiisa lala xidhiidhiyo loo sheego dawadiisana uu ku sito jeebkiisa ama shandadiisa si hadday timaado iskuulka dhexdiisa xaaladdan deg degii looga badbaadiyo isku wada geeyo koley dhakhtarka marka la geeyo dhakhaatiirtu way yaqaanaan say ula tacaalaan waxyaalaha ugu muhiimsan ibnifrin dawo la yidhaha ayaa jirta taasoo intramuscular laga siiyo ama murqa lagaga mudo ama qofkuba haddii uu isagu sito uu isku mudo iyada marmarka qaar markay xaaladdu adkaato i v baa lagu mudaa laakiin i v-gaasi waa inuu fuliyo oo keliya doctor magaranaysa khibrad badan leh oo emergency medicineka kusoo dhex jiray muddo dheer haddii kale waxa laga yaabaa inuu isaga laftiisu problemiyo kasii waaweyn abuuro xaaladda xaaladdeena aynu maanta ka sheekeynaynaa waxa weeyaan xaaladda haddii la ogaado ama la garto si fudud looga hortegi karo haddii la garan waayana qofka geynaysa xaalad uu naftiisa ku waayo aad iyo aad baad mahadsantihiin runtii daawashadiina iyo waqtigiinaba
waxaan rajaynayaa in aad sidii caadada ahayd aad faafisaan dadka aad khayrka gaadhsiisaan iyo cilmiga, subscribe garaysaan, share garaysaanna channelka. saasaan isku ognahay, iyo khayr iyo maalin wanaagsan, galab wanaagsan, subax wanaagsan, hadba xilliga ay ku tahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.